السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديد قارقة كسو دوادا مونلايت أكاديمي كنا سو دوادا عشر كان مانتا أو عشر كوات كورسغا لغدا سواحيلغا عشر كان مانتا وحنكو قادن دوغنا ألفابيتي za Kiswahili au abjadi za Kiswahili au herufi za Kiswahili. Casharka maanta oo casharka koowaad waxaan ku baran doonaa alfabeti za Kiswahili mise abjadi za Kiswahili mise herufi za Kiswahili. Dhammaantooda waa isku mid waxayna la micno yihiin alifbeetaha luqadda Swahiliga. Marka waxaan baran doonaa alifbeetaha luqadda Swahiliga. Mar walba oo la baranayo luqad waxaa laga maarmaan ah in la barto alifbeetaha luqadaasi, waayo ereyada luqadaasi hodhow waxaa la isticmaali doonaa alifbeetaha luqadaasi. Marka waa inoo muhiim inaan barano alifbeetaha luqadda Swahiliga. Su'aasha koowaad oo aan isweydiinayno ayaa ah alfabeti ni nini? Alfabeti ni nini? Alifbeete waa maxay? Marka haddii aan ka jawaabno waxaan leenahay alfabete ni herufi waa xurufo za Kiswahili Kiswahili au mise au ayay u qoran tahay, au ayaan u akhrinaynaa, au mise sauti waa dhawaq mise shanqar, ambazo kuwaasi oo hutumika loo adeegsado kutunga in lagu dhiso maneno za Kiswahili, xurufo Swahili ah. Marka alifbeeta waxaan dhahnay waa xurufo Swahili ah mise dhawaq kuwaasi oo loo isticmaalo in lagu dhiso xurufo Swahili ah. Ni herufi za Kiswahili au sauti ambazo hutumika kutunga maneno za Kiswahili. Marka luqadda Swahiliga haddii aan fiirino qoraalka halkan ku qoran kaliya ayaa nagu filan in luqadda Swahiliga iyo tan Soomaaliga dhanka qorista iyo akhrista ay isku mid yihiin. Idadi ya herufi za Kiswahili ni 30. Idadi tirada ya herufi za Kiswahili xarufaha Kiswahiliga ah ni waa 30 soddon. Marka tirada xarufaha luqadda Swahiliga waa soddon, halka tan Soomaaliga ay tahay 26. Waxayna isugu jiraan konsonanti na vokali. Konsonanti waa shibane na vokali waa shaqal. Marka aan fiirino vokali oo ah shaqal. Shaqalka luqadda Swahiliga waxaa ka mid ah a, e, i, o, u. Marka waa isku mid dhanka shaqalka luqadda Swahiliga iyo tan Soomaaliga. Isku si ayaa loo akhriyaa. Marka Swahiliga waxaan dhahnaa what you see is what you read. Yani waxaan ula jeedaa sida ereyga uu u qoran yahay ayaad u akhrinaysaa. Ma ahan sida luqadda Englishka ereyga inuu si u qornaado sina loo akhriyo. Marka Swahiliga sida ereyga uu u qoran yahay unbaa loo akhriyaa. Okay, aan gudagalno casharka oo ah alfabeti za Kiswahili au abjadi za Kiswahili. Marka alifbeetaha dhammaan halkan cashar ayaan ku koobi doonaa, waayo waa wax iska fudud, kaliya waxaa ku jiri doona xurufo qaar oo aan ku jirin luqadda Soomaaliga, balse waxaan rajaynayaa in ay noo fududaan doonaan insha Allah. A, ba, cha, da, dha, e, fa, ga, gha, ha, i, ja,
ka ka la la ma ma na na nga 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 nya nya o o pa pa ra ra sha sha ta ta va va u va va wa wa ya ya za za marka ereyada halkan inoogu muuqdo inay inoogu yar adag yihiin waxaa ka mid ah cha cha dha dha gha 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 nga 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 tan waa nga tan waa nga nga nya 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 dha dha marka har mal ayaan ku celin doonaa a ba cha da dha e fa ga ga ha i ja ka la ma na nga nga nya o pa ra sha ta dha u va wa ya za marka soddonkii xuruuf ee ahaa alifbeetaha luqadda Sawaaxiliga halkan ayaan ku dhameynay waxaan kaloo baran doonaa in xuruufaha qaar aan laga helaynin luqadda Sawaaxiliga haddii aad ku qortid xuruufahan soo socda oo 3 ah ogow inay qaldan yihiin oo aanaysan ku jirin luqadda Sawaaxiliga xuruufahaasi maxaa ka mid ah herufi hizi hazibo xuruufahan soo socda luqadda Sawaaxiliga lagama helo ogow xuruufahaasi waxaa ka mid ah luqadda Soomaaliga tan waxaan dhahnaa waa a Englishna waa c marka a keligeed ah luqadda Sawaaxiliga lagama helo ogow haddii aad ku qortid ereygan a oo aad qaldan tahay mana ku jirto luqadda Sawaaxiliga tan labaad waa q Englishka halka Soomaaliga aan dhahno qa qa marka q kuma jirto luqadda Sawaaxiliga tan kalena waa ha mise x luqadda Englishka marka saddexdan xuruuf kuma jiraan luqadda Sawaaxiliga lagumana qori karo loomana isticmaalo in lagu dhex qoro luqadda Sawaaxiliga c mise a ayaa laga yaabaa in lagu daro ha ay noqoto cha marka q iyo x luqadda Sawaaxiliga kuma jiraan waxaan rajaynayaa casharkan inaad fahantay casharkeena maanta halkan ayuu noogu dhan yahay waxaan rajaynayaa inaad fahantay casharka waxaan idin socodsiinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan waxaan ku kulmi doonaa casharka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu